Hay soo dhawaada asxaabta maanta filimkeen wuxuu ku bilaabayaa gabadhan lagu magacaabo Dayun waan ardayad dhigata college waxayna bartay amaan ugu shaqaysaa cafeteria kamana qasna gabadhan noloshooda way iska qanacsan tahay booskeedana waxa lagu magacaabaa Jihan waa ninka iska leh cafeteria waxaana la dhalatay gabar ka yar oo lagu magacaabo Ari gabadhan waxay aad u taageertaa K-Babs heesayaalka caanka ah waxayna saaxiib la tahay waqti dheer la qaadataa Dayun dhanka kale waxa arkaynaa gabadhan lagu magacaabo Kim Biyol waxayna ka tirsantahay kooxdan Sarraa Angeles lagu magacaabo 5 sano la soo dhaafay iyada ugu tarsanay waxayna aad isugu egyihiin Dayun kontraadeeda kooxda ay la gashay ayaa dhici rabto markaan si wuxuu doonayaa gabadhan qof kale ku bedelo oo kama helin asiga laakiin nasiib wanaag managerkeeda ayaa wili taageersan kana difaacay CEO-ga wuxuuna ka dhadhacsiinayaa inay ka qayb gasho showga oo qabanayo wiilka caanka ee lagu magacaabo John Woo markaas ay CEO wuxuu ku dhahay kani waa Janice ugu dambeeyay gabadhan asiinayno haddii ay meeshaas ka soo baxdana ma bedeli doono laakiin si walba ay ahaato gabadhan lagu magacaabo Biyol problem maskaxiyan ayaa hayso depression ayaa ku dhacay mana hubto inay ka soo bixi karto arrinkani si walba ay ahaato Dayun ayaa delivery u qaadayso company ay ka shaqeynaysa Biyol laakiin managerka markuu banaanka u soo baxay gabadhan delivery ay keento ugu qaado aad ayuu ugu naxayaa sidii isugu egyihiin labadan gabdhood kadibna uu soo wadayaa sidii gabadhan kale u tuso inay si isugu egyihiin labadooduna aad ay u yaabayaan isla markaas ayaa Biyol iyo managerkeeda la fadhiisanayaan Dayun kadibna waxay ka dhadhacsiinayaan inay ka qayb gasho showga kale ee gabadhan Biyol ay ka qayb gali rabtay ayada beddelkeed labadooduna booska ay kala bedeshaan laakiin Dayun markii hore way ka diidaysaa kadibna Biyol ayaa wax ka dhadhacsiinayso waxayna u sheegaysaa inay jiranta iyada inay ka qayb galin karin dansigaasi sida daraadeedna CEO-ga company-geeda uu ka ciiri doono shaqada kadibna way ka ogolaanaysaa arrinkaasi anigana sidoo kale asxaabta waxaan ka codsanayaa inaad ku yaacdaan channelka description saaran ee Leyda Channel kaasoo musalsalada cusub aan soo saari doono aad baa ugu mahadsantihiin asxaabta isla markaas ayaa managerka wuxuu bilaabanayaa gabadhan inuu tababar u sameeyo si ay u buuxiso Biyol booskeeda wuxuuna sidoo kale isku dayaa inuu dabeecadaheeda baro markaan waxaan arkaynaa Dayun oo la soo habeeyay kadibna waxay imaanaysaa hotelkii showga lagu qayb galayay isla markii hotelka timaadana gabar hotelka shaqeynaysa ayaa u imaanaysa kadibna waxay u sheegaysaa meesha maqaayadda inay tagto si John Woo halkaas kula kulanto kadibna maqaayadda ay fadhiisanaysaa iyadoo nervous ah isla markaas ayaa John Woo soo galay meesha Dayun isla markii wiilkii way ka helaysaa isla markaas ayaa iyada usugeen waxay leedahay waaw wiil shidan baa tahay kadibna meenagu maqaayadda ayaa loo keenaya kadibna qof kale ayuu wax u dalbayaa halka Dayun cunto caadi ay John Woo u dalbayso laakiin John Woo Dayun wuxuu u dalbayaa cunto ka samaysan eggplant wuxuuna ku leeyahay Biyol hore ayaan u soo fiiriyay cuntada aad jeceshahay intaan imaan halkaani waxaan ogaay eggplant in aad u jeceshahay laakiin lama socdo qofka hortiisa fadhiyo inay Biyol ahayn ee Dayun tahay cuntadan in aad u jeclay oo eggplant ka samaysan laakiin waxay samaysan ma taqaano way iska cunaysaa way qosbantaa inay cunto dhanka kale waxaan arkaynaa managerka oo la talinayo Biyol una sheegayo maadaama ay ka shaqeynayso kafeega waxyaabaha ay sameyn karto iyo waxyaabaha ay sameyn karin markaas ayaan arkaynaa Ari oo fiirsanayso kooxdii dansarada ahayn isla markaas ay gabadhan tusinaysaa waxayna ku leedahay gabadhan way isku egtihiin laakiin lama socdo qofka fiirsanaysa in ay lafteeda tahay maadaama ay Dayun u malayso laakiin waxba kuma dhahayso way ka tagaysaa iyadoo la hadlayeen shaqadeedana ka sii wadanaysaa isla markaas ayaan arkaynaa Jihan oo keenayo cake ee Dayun jeclad gabadhani laakiin ma taabanayso meesha ay u tagaysaa kadibna eggplant-geeda ay cunaysaa sandwich laga sameeyay dhanka kale John iyo Dayun way soo baxayaan kadibna qolkooda ay soo aadayaan halkan sidoo kale waxa ka ogaanaynaa John Woo inuu sidoo kale problem maskaxiyan haysto stalkerada raacaya nafta u keeneen habeenkiina hurdo u diideen xataa hotelka ugu qaalisan hadii uu jiifo markaana xagga iyo cafeteria Ari aad ay u shaqaysantaa gabadhani habdhaqanka cusub ay la timid shaki ayaan ugu jiro inay Dayun tahay gabadhani kadibna intay u timaado waxay tusaysaa sawir bombila waxayna ku leedahay sawirkan ayaa hadiyad ugu baahan inay igu soo gado Biyolna waxay ku leedahay okay aniga ku soo gadaayo balse isla markii ay waxay soo qabanaysaa isla bombilihii waxayna ku leedahay 2 maalin ka hor ay Dayun ii gaday sida darteed adiga Dayun ma naqan kartid Biyol markaa way ku qasbantaa runta inay sheegto kadibna runta ay u sheegaysaa waxayna ka codsanaysaa inay qariso arrinkaani waxay kadib ayaa Biyol waxay ku daadaysaa customka Biyol kadibna naagta macmiilkeeda ayaa waxay ku dhahaysaa idigaada ay tusi wayna ka diidaysaa kadibna waxay bilaabaysaa inay sawir ka qaadato zaida Biyolna madaxweynuhu ayay ka qaadaysaa halkan waxa ka dareemayna inay flashka nacib tahay isla markaas ayaa Jihan imaanay kadibna caawinayo wuxuuna u digayaa mar kale inay ku xadgudbin sharafka shaqaalihiisa isla markaas naagta way cararaysaa oo Biyol ay caawinaysaa si xaaladeedu u weydiiso sidoo kale Jihan wuxuu arkayaa daawo loo qoro Biyol isla markaas ayuu aar qabanaya kadibna weydiinaya sida wax u dhacayaan Ari waxay isku dayaysaa inay ka qariso laakiin ugu dambeyn way u sheegaysaa isla markaasna Biyol way raadgelinaysaa Jiwan waxayna u sheegaysaa in kastoo ay caan tahay haddana flashka kamerada ay aad u dhibayso wuxuuna ku leeyahay waa iska caadi waxaas wax walwalin dhanka kale Dayun iyo John Woo waxay joogaan studio waxaan laga doonayaa inay sawir wada galaan laakiin Dayun ayaa waxay sawirka u galaysaa si aan professional ahayn sida daraadeed cameramanka ayaa aad u xanaaqayo inuu ku qalinayo bilaabo abaar kadib waxaan arkaynaa cameramanka oo soo galaya qolka Dayun dharka ku bedelaneysay isagoo gabadhii makeup ku marinaysa ka raacdaynaya qolka kadibna wuxuu u sheegayaa inay qolkiisa khaaska ku timaado isla markaas ay ku leedahay sabab aan kugu imaanay qolkaada khaaska maxay tahay kadibna wuxuu ku leeyahay iska faham sababta kugu wacayo waana la socdaa inuu CEO ku raacdayn rabo oo shaqada qalqal ku jirto hadii ay diidana ishtaka ayaan ka gudbinayaa kadibna John Woo ayaa qolka soo galay wuxuuna wadaay photographistihi marka studio ay ku soo laabanayaan kadibna wuxuu leeyahay cawada aniga ay ku imaanayo soo aniga ugu macsuumayso qolkaada si aan u xafladeyno laakiin cameramanka ayaa ka soo horjeesanaya arrinkaasi kadibna John Woo ayaa ku dhahay soo adiga ma wicin gabadhani oo hadda ma dhahin qolkii uu maaw markaas ayaa dadka dham yaabayaan meesha joogay
waxaan u sheegayaa dhammaan wuxuu meesha ku dhahay ninkaani dayuun arrinkaas dhan run waayay ku leedahay taasoo kaamiraamaanka ka xanaajinaysa isla markaas igu xanaaqsay oo meesha ka cararaya wajiga waxayuuna ugu cararaya isla markaas ayaa waxaan arkaynaa John Woo oo indhaha taagayo stalkerka inta arkay qofkan stalkerka oo meel walba u raacaya shaq ku riday ninkaani laakiin dayuun oo dareensan ayaa meesha ka wadayso kadibna dukaan ay geynaysaa si maskaxdiisa halkaas ugu dajiyo maadaama ay asagana u caawiyay markaas ayaa John Woo sheekaynayo sida qofka stalkerka nafta uu keenay oo noloshiisa ciriiriga u galiyay markaas ayaa dayuun tagtay in uu sheegayso in ciyaartoy ahaa jirtay kadibna lacag gacanta ay ka jabtay sida darteed sportiga ay ugu hartay mar walba soo xasuustana iska oyn jirtay laakiin ugu dambeyn markay xaqiiqsato dhacdadaas inay wax qalad ku lahayn ay qadar iska ahayd markaas ayaan iska hilmaamay sidaan hore ugu socday ay ku leedahay marka sidaa darteed adigna waa ina kor u baxdaa waxay leedahay arrinkani noloshaada wax saameyn inay ku yeeshaan ma fiicno iskana hilmaam kadibna qolkooda ay soo aadayaan markaas ayaa John wuxuu arkayaa qolkiisa in hore loo soo galay kadibna alaabihiisa la baaray isla markiina dayuun ayuu wacayaa baaritaan ayana bilaabayaan kadibna wuxuu ogaanayaan managerkiisa inuu meesha yimid laakiin John Woo ayaa ku dhahay wili waa cabsanayaa marka dayuun ay caawi oo ila joog kadibna buugeeda inta soo qabtay ay soo fadhiisanaysaa kadibna waxay ku leedahay ilaa ka hurdo kula joogayaa waxaan arki jiray gabar la caawinayo oo lala joogayo kadibna la sasabayo laakiin markaan waxaan arkaynaa gabadhii inay wiilka caawinayso maadaama uu cabsanayo laakiin maxay caawisaa iyada ay hurdo meesha la dhacday isla subaxdii albaabka ayaa la soo qoray kadibna markuu furo wuxuu arkayaa Looney oo ka tirsan groupka Angeles isla markaasna waxay tusinaysaa warqad ku qoran tahay mishinkeeda xigo oo ah inay cunto isku kariyaan markaas asigoo isku dayay inuu qolka ka celiyo ayay xog soo galaysaa kadibna John Woo ayaa mashquulihayo inta ay dayuun ka dhuumanayso isla markiina way ka dhuumanaysaa iyadoon arkeen isla markaasna dayuun qolkeeda ay soo gaaraysaa waxayna u imaanaysaa gabadhan la yiraahdo Hanwell oo iyadana kooxda Angeles ka tirsan isla markaas ayaa Hanwell waxay bilaabaysaa in la taliso dayuun waxayna ku leedahay iska ilaali wiilkan la yiraahdo John Woo waa halis waana shaxaari weyn laakiin dayuun uu iska mashquulinaysaa maadaama wiilkan wiil xun u malayn oo wiil fiican u haysato iyada abaarkiisa waxaan arkaynaa John Woo oo la fadhiyo dayuun kadibna wuxuu weydiinayaa asxaabteeda waxa ay jecel yihiin cuntada isla markaas dayuun waxay soo wacaysaa Biyool waxayna weydiinaysaa asxaabteeda cuntooyinka ay jecel yihiin waxayna u sheegaysaa inay jecel yihiin tabaaki laakiin intay u sheegin iyada mushroomka lagu daro tabaakiga inay xasaasiyo ku qabtay isla markii dayuun taleefka daminaysaa marka waxaan arkaynaa John Woo iyo dayuun supermarketka joogaan kadibna alaabta soo gadanayaan John Woo ayaa mushroom ku soo diray alaabta oo ay Biyool xasaasiyada ku qabtay isla markaas ayaa John Woo taleef u soo dhacay kadib banaanka ayuu aadayaa si uu u hadlo dayuun way ka soo dababaxaysaa kadibna waxay maqlaysaa si uu ku dhahayo gabadhan waxa kaliya aan wanaagsanahay oo wax fiican u sameeynayo waa showga alla qabanayo kaliya ee kama helin gabadhan camalna dooqayga maahan kadib aad ay u caroonaysaa wayna iska soo tagaysaa meesha kadibna markay soo laabtaan wajigeeda dhamay bedelanaysaa waxayna bilaabaysaa mar walba in la dagaasho markuu weydiiyo waxa qaldan inay u sheegtana uma sheegayso oo isaga tagaysaa kadibna Looney ayaa amaanaysa waxayna arkaysaa John Woo oo jarjaraya mushroomka laakiin waxba ma dhahayso way ka aamusaysaa inkastoo ay ogtahay Biyool inay allergic ku tahay laakiin John Woo ayaa wuxuu ku leedahay Biyool waxyaabo xun ayay ka sheegaysay sidoo kale dayuun inta u tagtay waxay ku leedahay John Woo iskaadgaad ayuu ku hayaa kadibna dhammaantood cashada ay isla wada cunayaan Looney waxay fiirsanaysaa gabadhan oo mushroomka cunayso maadaama ay Biyool allergic ku tahay inay jirata ay doonaysaa kadibna ay showga sida la ku qasalo laakiin lama socdo qofkan inay dayuun tahay isla markii afka gashatay Hanwell ayaa arkaysa kadibna waxay leedahay mushroom ayaa ku jira iska tuf ha ku jiranine isla markaas ayaa John Woo soo booday kadibna wuxuu leeyahay Looney way aragtay dadka markay karinay waxna ma ayna dhig maxay ka waday isla markaas Looney waxay bilaabaysaa inay isdifaacdo dhanka kale waxa arkaynaa Biyool iyo Jihan inay aad isku fahmayaan isku soo dhawaanayaan wiilka dhaqankiisana ay ka heshay maadaama Biyool kaamirada ay dhibaato ku qabto marka waxa arkaynaa kaamiradiisa iyadoo haysato kadibna ay sawir ka qaadayso waxayna halka ka dareemaysaa wiilka inay ka heshay dhanka kale John Woo iyo dayuun waxa loo keenayaa bashqadoodii kale oo mishinka xiga ay sameey lahaayeen waxaana ku qoran date inay isku raacaan ayagoo maqaayadii fadhiya taageerihiisa John Woo imaanayaan kadibna wuxuu bilaabayaa inuu saxiixo isla markaas ayaa gabadhii stalkerka John Woo ahayd ayaa imaanayso dayuun kadibna waxay ku leedahay saxiix intay saxiix ku mashquulsan tahay cabitaanka ay kaniin ugu ridaysaa isla markaas ayaa John Woo soo dejisanaya arkay isla markiina cabitaanka uu daadinaya kadibna meesha ay soo tagayaan si la hawo soo qaataan isla markaas ayaa John Woo wuxuu leeyahay waxaan dareensanahay inay xanaaqsan tahay maxaa dhacay dayuun ayaa isla markii uu sheegay waxna ku leedahay taleefanka markaa ku hadlaysay ku maqlay waxa sheegaysay markaas ayuu ku leeyahay war arkin sida u malayso ma ahan waxa jira mid kooxdan kamid ah oo shaxaari weyn oo stupid ah gabar walba aan la socdan wuxuu jecel yahay mar walba inuu weel wareego sida darteed ayaa xaggaada ka sii jeedinayay si uu kula soo xiriirin ayuu dhig ku leeyahay kadibna aad ay u xumaanaysaa maadaama iidan hubsan ay arag go'aan iska qaadatay isla markaas ayaa qalbigooda iftiin ka shidmay kadibna waxay bilaabayaan inay isku soo dhawaadaan isla shumiyaan dhanka kale ayaa waxay arkaysaa Biyool oo fiirinaysa Jihan kadibna intay u timaad ayay ku leedahay waa fiirinaysaa wiilku waa ka hesha soo maahan Biyool isla markii haa ayay ku leedahay markaas ayay waxay weydiinaysaa inuu gabar saaxiib leeyahay in kale kadibna waxay u sheegaysaa gabar oo saaxiib la ahay 10 sano inay 2 sano ka hor ay geeriyootay ilaa haddana uu gabar saaxiib la ahayn markaas ayaa Biyool waxay u imaanaysaa Jihan kadibna waxay weydiinaysaa inuu gabar saaxiib la noqon karo in kale halka Jihan isla markaas uu ku jawaabayo ma diyaar u mihiina gabar saaxiib la noqdo oo jaceelka hadda uu galo waxaan la hubaa inaan weyn doono marka sidaa darteed dhibaato kale kama caynto ayuu ku leeyahay Biyool ayaa isla markaas ku dhahayso soo adiga ma dhihin nolosha problemkeeda waa la iska hilmaamaa oo hore ugu soco hadda adiga maxay ugu dhigan tahay isla taladaas ayaa adiga ku soo celinayay ku leedahay kadibna kaamirada ay u dhiibaysay ay baroway ay ku leedahay inaan ka cabsanayn kale isla markaasna sawirada ayuu ka qaadayaa
dhanka kale waxaa arkaynaa Dayun iyo John Woo oo ka wada hadlaya mishinkooda xigo oo ah masraxa inay ku jiraan. Dayun markaa way carabsanaysaa oo nervous way. Sidoo kale photographistihi wuxuushka ahaa ayaa markay shuminayeen sawir ka qaaday kadibna wuxuu u gudbiyay warbaahinta sida dadka journalada ayaa lagu soo sawiray. Isla markaas ayaa Biyul iyo Ari iyo Jihan waxay aadayeen hotelka si ay u hortagaan stalkerkii John ku walneed inay gabadhan dhibaatayso. isla markaas way ka soo gaarayeen iyadoo cuntada ku darayso. Biyul isla markii cuntada bedelayso halka Ari ay ceersanayso stalkerkii. Stalkerka markaa idoo cararaysa ay iska hor imaanayeen Dayun wayna daba raacaysa. Isla markaas ay John managerkiisa soo wacay kadibna uu ku qaylinayaa sababta uu sameeyay waxa xanta keenayo. John Woo buuqa hotelka ayuu maqlay kadibna wuxuu soo orday wuxuu arkaya Dayun oo stalkerka gacanta ku hayso oo diidan inay sii dayso. Isla markaasna booliska ayaa loo wacay stalkerka sida ay booliska gacanta u cabaar kadib John Woo warbaahinta ayuu u sheegay waxay sawirka ay arkeen inuu sax yahay. Kadibna masraxa ay wacdara ka dhigayaan labadooda. Dayun markaa waxay go'aansatay John Woo wax runta jira inay u sheegto iyo inay Biyul ahayn. Kadibna waxay ku casuumaysaa qolkeeda inuu u imaado. Laakiin isla markii qolkeeda timaado waxay arkaysaa Ari oo ku sugaysa qolka. Isla markuu John Woo imaadana way raacdeynaysaa waxay ku leedahay Britain wada hadlayna iska baax. dhanka kale Biyul waxay doonaysaa markaan inay Jihan u sheegato jecelkeeda. Laakiin intuu ku dhawaaqinayo wuxuu ku leeyahay aad baan ugu faraxsan inta wada joognay. Haddana waxaan u maleynayaa inaad noloshaada hor ku laaban doonto. Kadibna way iscelinaysaa oo arrinkeeda meeshaas ay ku soo xiraysaa. Meeshan ka xigay John Woo Dayun laga reebay wuxuu ahaa inay u noqdaan meesha xasuus ku reebtay. Kadibna supermarket-ka maqaayad ku tiiray ayuu laabanayaan. Isla markaasna John Woo gabadhan jecelkiisa ay u sheeganaya. Laakiin iyada nervous ay naqanaysaa kadibna waxay go'aansanaysaa inay runta u sheegto. Laakiin intayna u sheegin ayaa waxa imaanaya managerkii Biyul. kadibna uu ku qaylinaya wuxuuna xasuusinaya inay sarta qariso wax walba ahaatana ay runta sheegeen maadaama kan oo mishinkooda ugu dambeeyay waqti ugu dambeeyay wada kulmayaan. Dayun waxay u mahad celinaysaa John Woo waxaana ku leedahay waa ku mahadsantahay shaqada wacan aan isla qabanay. Qof walba noloshiisa hore ayuu ku laabanayaa. John Woo wuxuu isku dayaa inuu celsho si sharaxaad ugu bixiso sababta waxaan u sameynayso laakiin lama hadlayso oo ka tagaysa. markaan Bill ayaa ka soo wareegtay dhacdadaasi joornaaladan dhammaan waxay daawacayaan John Woo iyo Dayun kala tagoodii iyo xiriirkooda go'ay halka Dayun iyo Biyulna qof walba nolosheeda hore ay ku laabatay. Biyul ayaa markaa wuxuu imaanaysaa Jihan oo fiirinaya sawirkeeda kadibna waxay weydiinaysaa inuu sawirkeeda fiirinaya in kale kadibna isku naxayo wuxuu leeyahay maya kadibna way u sugaysaa ay ku leedahay wuxuuna ku leeyahay haa wayna ku farxaysaa arrinkaasi. sidoo kale Dayun waxay tagaysaa goobta isku shumeeyay iyadii John Woo kadibna iyadoo fadhida ayay waxay arkaysaa lamaana da'yar oo meesha wada fadhiyo iyadoo eegaysa ayaa agteeda waxa soo fadhiisanaya John Woo taasoo la yaab ku noqonaysa iyada kadibna waxay weydiinaysaa sababta halka uu joogo waxaan ku leeyahay dhowr mar ayaa halkaan imid adiga ku filanaa inaan meeshan timaado waxaan ku leeyahay meesha waa halka meel oo runta isku wada sheegno runta waxay tahay aan ku ogaano kadibna dhacdadaas waxa ka soo wareegay hal sano halkaas sano waxaan arkaynaa xiriir hoose inay labadooda lahaayeen. markaan waxaa la gaaray dhalashadii Dayun kadibna waxay diyaariyaysaa cunto si isugu dabaaldegaan iyada iyo John Woo dabadeedna way wacaysaa kadibna nambarkiisa lama heli karo weeyaan kadibna habeenkii dhamay sugaysaa mana soo wacayo haddana maalmo ayaa ka soo wareegay mana arkayso kadibna walwal ay bilaabaysaa inay dhibaato gaartay in kale dhowr maalin oo kale ay guriga soo bixi weynaysaa iyadoo murug la jiifto. Ari ayaa markaa imaanaysa iyadoo isku dayaysa inay niyadda u dhisto gabadhaani isla markaas Arni oo xanaaqsan ayaa waxay ku leedahay ninkaas walba shaxaari ayuu ahaa ee noloshada nacaskaas uu burburinin laakiin Dayun kama yeelayso waxay ku leedahay wiilkaas wiil fiican ayuu ahaa ee sababta uu ila soo xiriir leeyahay dhibaato la jirto. dhanka kale waxaa ogaanaynaa John Woo kamariga uu kontaraadda kula jiro inay ogaadeen xiriirkiisa sawirro hoose oo ay ka qaadeen kadibna taleefkiisa ay kala wareegeen sukuuridna u sameeyeen si uu ula kulmay gabadhaani noloshiisa dhamna kontaroolka u qabteen. dhanka kale waxaa arkaynaa Biyul oo la soo bandhigaya show kale oo reality ah kadibna way kor imaanaysaa isla markaas CEO-ga ayaa xanaaqayo wuxuuna ku leeyahay haddaan ka qayb galin showgan haddaba waan ku xirinaynaa oo shaqada ayaan ka raacdaynaynaa. dhacdadaas kadib Biyul managerkeeda ayaa u imaanaya kadibna wuxuu leeyahay Dayun waa inaan warstaa caawin mar kale ayadana waxay ku leedahay gabadhaas inaan mar kale dhibaatay ma doonayo laakiin ugu dambeyn Dayun ay u tagaysaa wayna ka codsanaysaa inay booskeeda gasho. Dayun isla markii way ogolaanaysaa maadaama ay rajeynayso inay la kulanto John Woo markaani laakiin markaan sheekada way ka bedelan tahay sheekadii hore oo waxaa loo sheegayaa in kooxda dhammaan isla joogi doonaan hal dhismo isla markii Dayun soo gaarto dhismihiina waxay la kulmaysaa fanaankan lagu magacaabo Dayun kooxda ay ku tirsan yahay heesaha qoran heesaha loogu jecel yahay weeyaan. sidoo kale waxay la kulmaysaa Han Wen oo isla tababarjeen sanado ka hor John Woo ilaa haatan asxaab ay yihiin waqti xaadirkan filna isla jelayaan. sidoo kale waxay la kulmaysaa Eden ninka la yiraahdo wiilkana waxa dhalay ninka baniga madaxa ka ah oo John Woo kontraad kula jiro wuxuuna aad ugu xanaaqsan yahay maadaama abiis John Woo indhaha ku hayo mar walba aadna u jecel yahay sababtoo halka uu yimid waa inuu indhaha ku hayo John Woo kaliya si uu qaladaad ku qabto kadibna shaqada looga ceeriyo. sidoo kale goobta waxa jooga Loni oo ay lafteeda tiimka ka tirsan Loni shaqadeeda hore waxay u soo tagtay maadaama gabadhan sanad ka hor dhibaato ay u geysatay marka takanka hore ay u qabtaa markaani ugu dambeyn John Woo ayaa meesha soo gaarayo markaas ayaa warqadihii waqtiga nasiibka ee lamaanaha loo dhiibaya kadibna Loni waxay ku aadaysaa Eden halka haween ay ku aadaysaa John Woo waxaana isku soo haray Dayun iyo Dayun. dhanka kale waxaa arkaynaa Biyul u gaaraysa cafeteria Jihan aad ay ugu farxaya gabadhan in uu soo noqoto markaan waxaa arkaynaa John Woo inuu fiirinayo Dayun isla markaas Eden ayaa dareemayo sababtoo halka uu joogno ninkan ay isku gadgad ku haya si uu fashil lahaa kadibna John Woo wuxuu u meenayaa Dayun wuxuuna ka codsanayaa Dayun inuu war ugu geeyo laakiin Dayun arrinka uu ka soo horjeesanaya uma doonayo. markaan waxaa arkaynaa Dayun iyo Dayun inay ka qayb galaan showgii wariida ayaa Dayun waxay weydiinaysaa inay u ciyaarto laakiin Dayun ayaa waxay ku leedahay xirfad kale ay halkan ku soo bandhigay
oo ah lagdanka gacmaha isla markiina wariyadii ay ka raynaysaa dayuun ayaana ka soo qayb galay wuxuu ku leeyahay labadeedii far waa inaa ka raysaa markuu arko inay ray rabto ee dhulka dhigi rabto wuu ka boodayaa markii shaqo ka baxoon ayaa dayuun waxay dayuun ka codsanaysaa inuu warbixin John ugu geeyo uuna ka ogolaanayaa dhanka xagga ay kafeteriga biyul ka maqasna oo xaalad degan ay isaga jirtaa ilaa uu ka imaadin taageero weyn oo in suuq la yiraahdo isla markiina biyul ay u imaanaya markaas ay waxay ku leedahay aniga biyul miye ee dayuun ayaa ahay laakiin uu ku diiday waa ku aqoonsaday uu ku leeyahay baar kadib ay biyul waxay weydiinaysaa Ari inay garanayso ninkan in kale kadibna Ari ay waxay ku leedahay ninkan sax waayo mabda'i ku dabaraacay uu ku fahansan yahay ninkan gabadhan taageero weyn ayuu yahay wuxuu ka soo horjeedaa inay mas'uuliyaddeeda ka soo tagto ayadoo iska dhigayso qof kale wuxuuna halka u joogaa inuu arrinkeeda cakiriyo dhanka habeenkii waxa arkaynaa dayuun uu soo gaarayso warqad oo John uu soo diray saqafka horna ay ku kulmaan sidoo kale Eden iyo Looney waxay waardiikahan qaybta sare waxay markaan doonayaan labadooda isla jir inay ku qabtaan si John uu markaan shaqada looga cayriyo isla markaas dayuun waxay aadaysaa meesha lagu balamiyay cambayn ku sugaysaa albaab furma ay arkaysaa markay furtana John uu ayaa gacanta qabanaya isla markiina qolka ayuu gelinayaa intii si gelisay taleefanka ka dhacayo qol bakhaar ayayna galayaan waqti ay halka ku qadanayaan dhanka Eden iyo Looney waxay leeyaan taleefankii waxay isku dayaan taleefanka inay furaan si ay siraha ku diro banaanka u soo dhigaa maalintii xigta arkana dayuun uu la soo galiyay dhar aad u yar kuna dhagan inuu ku soo karin dayuun wuxuu dareemayaa dharka inuu gabadhan dhibaayo kadibna jaakadiisa ayuu lugaha u saaraya sawir qaadayaashina wuxuu ku leeyahay ma ahayn dhar ku habboon in gabadhan ay u soo xirtaan adna ku qasabtaan John waxa dhacay hortiisa u jeeday wuxuuna ka maseeray sidoo dayuun gabadhan ugu taxadirayo waxaan loo sheegay dharka loogu talagalay gabadhan inay wadato Looney dayuun asigoo xanaaqsan dadka hortooda ku ceebeysanaya Looney abaar kadib John wuxuu ogaanayaa in taleefanka dayuun ay hayaan Eden iyo Looney kadibna Eden ay u tagayaa kadibna Eden oo isxanaajinaya haween teetma taleefanka jeefkiisa kala baxaysa kadibna waxay ku handadaysaa wuxuu sameeyay soo bandhigi doonto hadii uu mar kale iswaalo arrintan halka uu ku gabagabeeyo dhanka kale biyul waxa nafta u keenay wiilka Ilaahay Inso meel ay ka tagtay in laada isla markaas waxa arkaan asigoo qof wacayo kadibna uu sheegay gabar leeyahay dayuun iyo biyul inay bas kala bedesheen qofka showga joogtana ay dayuun ay tahay sawirro uu ka soo qaadan oo caddeyn uu soo diri doono isla markaas waxa arkaan Eden in la soo waco qof soo wacay kadibna uu sheegay arrinkaas dayuun iyo biyul inay bas kala bedesheen ah kadibna Looney uu tagay uu sheegaya wuxuuna ka codsanayaa inay kala cadeyso gabadhan inay biyul tahay in kale dhanka kale John wuxuu golwalsan yahay dayuun iyo dayuun isu soo dhawaashadooda xataa uu ku hurdi laayay uu ku riyoonaya sidoo kale dayuun sheekada ay meesha ka wadata waxayna aad ugu dhawaanaysaa dayuun si ay ugu maseersiiso John Woo haweenna sheekada meesha ka socota dhan way fahmaysaa kadibna John Woo si ay u caawiso biyo ay ku daadinaysaa dayuun taasoo ku kalifaysa inuu meesha ka tago abaar kadib haween waxay arkaysaa taleefanka dayuun oo soo dhacay kadib markay fiiriso waxay arkaysaa biyo inay soo wacayso waxayna halka ka ogaanaysaa inay gabadha sax ahayn isla markiina way u tagaysaa way weydiinaysaa isla markiina dayuun way u sheegaysaa runta waxayna ka codsanaysaa sirta inay qariso habeenkii dayuun oo jeefta ayaa waxa u imaanaysa Looney iyadoo rabto duudkeeda saarta ku tiilay inay aragto isla markiina dayuun ayaa ku kacayso inay dagaalaya waxayna weydiinaysaa saarta duudka u talay inay tusay in kale si ay u xaqiijiso inay biyo tahay isla markaas haween ayaa soo kacayso waxaan ku leedahay haarta ku taal aniga ay arkay madaxna gelin meesha naga tag halka Looney ay weydiinayso meesha ugu taalo laakiin haween waa iska aamusays dhanka kale jihan ayaa wuxuu qabanaya ninka Ilaahay Inso wuxuuna qabtaa asigoo sawir hoos uga qaadayo gabadhan biyo kadibna biyo ay xanaaqsan ayaa u maanayso waxaan ku leedahay taageero sun ayaa tahay nolosheeda sida cariir u gelisay ma garanaysid mana dareemi karto waxaan dareemayo waxaan u raacsiinaysaa hadii hal mar journal lagu soo qor arrinkayga daawo aan weliga ka dhameynayna ayaa ku qori doonaa wax walba ugu qaadatana kama hari doono unsuka dadanta caadiga ah markuu arkana oo isku naxaya kadibna goobta ayuu isaga tagayaa dhanka waxa arkaynaa dayuun inuu gabadhan dayuun jeclaaday jaanis walba xageeda ugu dhawaanayo oo sameeynayo wuxuuna ku leeyahay runtii aniga waan ka helay hadii ay saaxiibtay ahaleedna cidna ka maqan lahayn adduunka dhan waa ogeysiin lahaa dadka dhamaantood hortooda ayaa ku sheegi lahaa laakiin si walba aad dayuun waa ka soo horjeesanaysaa arrinkaasi waxaana ku leedahay qof kaliya aan jeclaan in John Woo weeyaan arrinkaas kadib dayuun waxay ku ogaanaysaa haween haddii kontraad John Woo la kansalo John Woo inuu ku qasbanaanayo lacag badan inuu kambaniga siiyo sidaa daraadeed xiriirkan hoos halka lagu soo gabagabay John Woo wuxuu sheegay inuu arrinkan xalin doono halkeedan oo keeni doono marka uu sheegay sida ay ugu dhahay ku leedahay isla markaas ay Looney waxay qaadanaysaa taleefanka dayuun kadibna waxay message u diraysaa biyol idoo ku dhahayso meel hebel imaaw qofna ay ku ogaan oo kaliya ana timaada ay ku leedahay biyol waa isku naxaysaa markaas waxay leedahay waxba qaldan isla habeenkaas dayuun waxay la kulmaysaa John Woo waxayna ka raalin gelinaysaa maadaama ay soo jeedisay in labadooda kala tagaan isla markaas ayaa John wuxuu ku leeyahay waa inaad iga taxadiray aadna ii diidan in shaqada laga cayri laakiin wax walba waxa iga darin adiga dhaafto kadibna haba siinaya isla markaas waxa ogeynayna haween inay wiilkan aad u jeclay sanad aad u fara badan ay jeclay laakiin ay ku dhiiran weysay inay u sheegto jecelkeeda sida darteed markaa ay u caawinaysaa asiga si uu qofku jecel yahay u helo farxadna ugu noolaado isla habeenkaas John Woo iyo haween hees fiican ay ka qaadayaan masraxa dhanka waxa arkaynaa biyol oo kamariga imaanaysa iyadoo ma soo xirato una malaysa inay dayuun soo wacday qof shaqaalaha kamid ayaan arkay isla markiina uu aqoonsanaya dibna qolka diyaarinta ayuu geynayaa si isku soo diyaariso kadibna Eden ay arkay in labadooda meesha la joogaan maadaama Looney ay u sheegtay in labadooda meesha isku wacayso Looney markaan kooxda ay soo wadanaysa si qolka labadooda ugu jirin u keento wayna soo galayaan waxaan la socdo wariye dayuun way dhuumanaysa kadibna biyol ay waxay leedahay out kale isla markaas dayuun ayaa goobta soo galay waxaan ku leeyahay dhibaato badan ay gabadha u geysatay ilaa hadda ma daba socota isla markaas wariyaasha ay u jeesanay kadibna wuxuu ku leeyahay gabadhan dhibka ay geysatay waa inay soo bandhigtaan isla markaas Looney waxay dareemaysaa inay dhibaato dhex gashay waxaana soo cararaysaa Eden si uu badbaadiyo laakiin Eden waxba u qaabamayo wuxuu ku leeyahay waa ku kaliga
wax lagu war ku baliya arrinkan aniga isla markaas luuni waxaan aqsan aabihiis waa iska dibna wuxuu sheegay wax walba uu sameeyay aabihiis waxaan aqsan amaana kadibna garacad ay ugu darayaa kadib iina noo caraysan maagiis soo qaadanay wuxuu u sheegayaa dadkii goobta ku sanay laba qof inay yihiin labadaani dadka ay wareeriyeen labadooda isku bedelaan boosaska isla markaas ayaa booyul meesha soo istaagaysa kadibna raaligina ka bixinayso wixii dhibaato ka timaadana aniga ayaa dusha saarnay ku leedahay sidoo kale John Woo mikrofoonka ayuu soo qabsanaya wuxuu dadka hortooda ka sheegaya inuu daayuun jecel yahay TV-yadan dham ayaa fiidiyoo isla qaadanaya labada gabdhood is ag taagan sheekadooda magaalada dham ay ku faafaysaa kadibna waraysiyo badan ayaa laga qaadayaa kadibna waxa arkanay CEO company-ga oo John Woo soo bandhigaya warqad iscilaada laakiin John Woo ku diidaya wuxuu ku leeyahay hal sano Janice C wax walba company ka qasar aniga ay soo gudaayo markaas ayuu shuruud wuxuu ugu xirayaa hal sano inuu maqnaado showna dibadda uu ku soo qabto haddii uu taas sameeyo inuu cafi doono dhan kale Biyol Jahan ay u tagaysaa si xiriirkooda halka uu wado Jahan uu ku ogolaanaya halkaas in xiriirku bilaabayaan labadood dhan kale Duyun markay ogaato ninkan hal sano ka maqnaanaya aad ay u oonaysaa way ka xumaanaysaa laakiin wuxuu sheegayaa inuu hadduu maqnaashadiisa in waxba iska bedelaynin jacaylkooda waqtigan inuu dhaqso dhamaad doono maalmo kadib Duyun wax iska baranaysa ayaa John uu soo wacayo kadibna xaaladdeeda sidii ay u weydiinay waxaanu sheegaysaa xaaladda inay oo kay tahay arrintii inay iska digto dad iska hilmaameen maalmaha kamid ah meesha iska fadhido oo dhageysanaysa heesaha John Woo ayaa si lama filaan John Woo agteed u soo fadhiisanaya kadibna wuxuu sheegayaa inuu markaan tagi doonin cimrigiisa inta ka dhiman uu la jiri doono Dayuun aad ay u farxaysaa kadibna way shuminayaan jacaylkooda halkaan ayuu ka sii bilowday lamaani kala farsamada isku la soo laabteen taraamadan halkaan ay ku soo gabagabeynaysaa hadaba halka dana la soo gartay aad ay ugu mahadsantahay muuqaalka like inoo saar haday nagu cusubtaana teamkan ka mid noqo subscribe inoo saar wixii raaya inoo reebsan halkaan nagu reeb